بشارو ددوينو dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda waxa la ogeysiinayaa in habeenka ciid Arafo ee ku beegan 15 Oktoobar ay walaalaha Isliiwood idiin soo diyaariyeen bandhig faneed kaasi oo ka dhici doona hoolka weyn ee Sarakaasi Dome. Fanaaniinta habeenkaasi idinka tumi doontana waxaa ka mid ah codka ahlaasiga ee dhagihiina qaadaya ayaa ugu horeysa waa Tuma waa Qaali Axmed Qaali ladan waa fanaanada sanadadan dambe laga daba dhacay codkeeda. sidoo kale waxa uu cabraan horay looga arag ama aan looga maqan abid halkaasi ku soo bandhigaysa anfac laki sidoo kale waxa isla goobtaasi wacdaro yaab iyo ama kaag leh oo kuraasada aan filayo idin ka daadin doono soo bandhigi doona liibaan jigjiga oo fanaanka daaciyada codkiisa baryahan dambe ee gabdhuhu si gaar ah u xiiseeyaan وعبرن باسوغيسان سيدو كله waxaa habeenkaasi goobta lagu soo bandhigi doona ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka gaar ahaan daatooyinka waxaana habeenkaasi kuraasta idinka daarin doona aabihii iyo hooyadii dhaantada وكما أمير إيوه أفعلكي sidoo kale waxaa habeenkaasi aad daawan doontaa riwaayad la magac baxday ila qosol oo ay idin jili doonaan jilayaal caan ah sidoo kale waxaa goobta lagu soo bandhigi doonaa tartan quruxeed waxaana lagu tartami doonaa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale labis casriyeedkii ugu dambeeyay ee waqtigan waxaana la isku doonsiin doonaa shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah ninku seegay warseeg Allah sidoo kale waxaa goobta lagu soo bandhigi doonaa filimkii Dallana oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo qaybtiisa boosmiidada waxaana filimkani uu noqonayaa markii ugu horeysay bulshada Soomaaliyeed loo soo bandhigo waxa goobtu Sarakaasi Dome oo ku yaala qiimuhu waa inta maamulka taariikhda doonta oo mid ku hali gelinaya waa 500 oo lacagta Kenya hadal lagu marafto haasaa waraac lagu noqday la iska miidaada qofkii goobta ka maqnaada الله يلا وحبا دافي أنقارة